الله u naxariistay Maxamed Cali Diiriye oo qayb ka ahaa dadkii ku dhintay musiibadii ka dhacday isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho ayaa ahaa il u soo burqanaysa oo u soo baxay qoys danyar ahaa misana u badnaa kuwa baahiyaha gaarka qaba waxaase ishaasi aasay maleeshiyada argagixisada ee Al-Shabaab Maxamed Cali Diiriye waxa uu u weynaa qoys ka koobnaa 3 wiil iyo 2 gabdhood oo lagu daray aabiyo hooyo caruurta la dhalatay marxuun Maxamed allaha u naxariistay 3 kamid ah waa kuwa dhagahala isla markaana ku tiirsanaa marxuumka dhintay qoyska dadkooda ku waayay qaraxii 14 Oktoobar ayaa ka siman murugada iyo la noolaashaha xanuunkii ay badeen maleeshiyada nafla dirirka ah ee Al-Shabaab dareenka waxa la koobi karo ahayd أمريكا إسكال درينك لا حسابك وهو دبدا محمد oo habaryar u ahayd aabihii qoyskan ee Cali Diiriye waxa ay sheegtay in Al-Shabaab ay qoyskan ka dileen mar la arag mar soo baxay oo ay ula jeeday wiilkii qoyska garabka u ahaa oo ay ku waayeen qaraxii Soobe ka dhacay anaga ninkii aan nafta lahayn maanta leeyahay kana haduu maartay wax yara u haray uu ka qaban karaa cida qaraxii amarkii ku dhacay amarkii markuu ku dhacay roobi markuu maqlay waa koomo galay sidii Soobe iyo qaraxii isku jireen soonqaad 17 soo dhintay inta soo qarararara la ilaahay baa iska oofsaday ilmahaas marka yaryarka masaakiinta oo misana dad aan ahayn maanta nin la dhashay hal nin ha ka jira kuwa ehela dadkooda waa dad iska saboola wuxuu hayeelaa geerida Maxamed ayaa saameyn ku yeelatay nolosha Aabe Cali Diiriye oo koomo u galay markii uu maqlay geerida wiilkiisa ugu dambeyntiina miir la'aantii ku dhintay Ruqiya Cabdullaahi Sheekh Umar waa hooyada marxuum Maxamed isaga iyo 4 kale ayay dhashay oo 3 kamid ah ay qabaan baahiyaha gaarka ah qaraxii Soobe waxa ay ku weysay nolosha curadkeedii isla musiibada sidoo kale waxa ay ku weysay aabihii qoyska ilmay waashan 3 laga ilaayeen 2 caadi ahay wiilku jaamacad dhiganay gelin ka dabnaa ilmaha wax meel uu raadi jiray odagana uu caawi jiray marka bilkii roona ayaa qaraxa soo baxay odagana aad ayuu wajiranaa jiray marka adana asagoo xoogaa miir ka qabo markii uu dhigto oo maqlay oo dana si miir daboolmay markaas kadibna wax badan oo yaalay waa bishii lixaad oo xijaabtay saas daraadeed anigana marka ilmihii wixii barbaleena ay qabsaday bar dhiiga marka qaarkood uu kacay ilaa hadda waa bar waa wax ay saaran marka saas daraadeed kala celiskood buuqood iyo xogaa murugo iyo waxaas ay soo wajahay kuwan oo u jeedaan waa qoyskii ay ka dhinteen Allah u wada naxariistay Maxamed Cali Diiriye iyo waliba Aabe Cali Diiriye Maxamed waxa uu ku geeriyooday qaraxii ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho oo ay ka dambeeyeen maleeshiyada argagixisada ah ee Al-Shabaab Aabe Cali Diiriyena waxa uu u dhintay xanuunka la yiraahdo dhiig karka oo la sheegay inuu ku sii darsaday markii uu maqlay geerida Allah u naxariistay Maxamed Cali Diiriye oo kamid ahaa boqolaalkii ruux ee ku geeriyooday qaraxii ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho qoyskan ayaa ah qoys u baahan in la caawiyo Cabdiraxmaan Cali Diiriye waa 12 jir wuxuu ugu yar yahay 4 hadda nool ee qoyska haddana waa midka kaliya ah ee 6 ee u dhameystiran yihiin taas oo ka dhigan in ay isaga sugayaan inta uu ka korayo qoyska ayaa ku sii noolaan doona duruufta hadda haysata haddii aan wax loo qaban magacii waa Cabdiraxmaan Cali Diiriye maxaa la dhashtay Maxamed Cali Diiriye oo ku dhintay qarax Soobe garabkii waa Allah naxariiso
isagana jannadii allah geeyo annagana samir intii islaam oo dhibku ku dhacayo dhan samir jibriil iyo imaan saxaabta allah ka siiyo. cabdirasaaq maxamed faarax, warbaahinta qaranka, muqdisho.